وظلها دان ولو طال أمنها، وسل عن هواها كل من ودها خطب، وسل عن هواها كل من ودها خطب. ومن كان في هذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب، ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب. ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب. تأملت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى maanta waxaynu bilaabi doonaa barnaamij ka duwan barnaamijyadii hore aynu halkan ka soo dayn jirnay. intiina daawan jirtay waxaad iga barateen anigoo culimada barnaamijkii lagu wareysanayay soo daaya ama barnaamijkii diinta iyo nolosha. laakiin markan insha Allah barnaamij ka duwan oo ka kooban ayaynu wada daawan doonaa ama aynu wadaagi doonaa waa idinka iyo anigoo kaliya. barnaamijkeenan waxaynu ugu magac darnay weli ma u fiirsatay. dhacdooyin kooban ayaynu ku soo ururin doonaa haddii Ilaahay dhaahdo, oo bini aadanka intiisa faraha badan leh marar fara badan uu ilowsan yahay, laakiin marka uu xasuusto uu markaasi ay aad u la weynaanayso. barnaamijkaasi ama wuxuu noqon doonaa dhinaca diinta ama nolosha dhinacyadeeda kale ee kala duwan ayaynu qaybo kala duwan aynu kusoo qaadan doonaa haddii Ilaahay dhaahdo. barnaamijkeena koobaad ay barnaamijkan ugu magac darnay ma u fiirsatay, waxaynu ku soo qaadanaynaa qaar ka mid ah nicmooyinka Ilaahayna siiyay ee markaynu suuqa iska joogno ama nolosheena caadiga markaynu wadano aynu marar fara badan ilowsanahay, laakiin cid nicmadaas ay ka maqan tahay markaynu aragno ayaynu aad u xasuusanaa. dabadeedna markaas aynu in fara badan aynu markaas Ilaahay ugu mahadnaqnaa ama uu qofku xasuusto. Ilaahay tabaaraka wa tacaala bini aadamka markuu sameeyay wuxuu ku galaday nicmooyin aad u fara badan oo Ilaahay ugu talagalay inay dadku ku gartaan Ilaahay weynaantiisa iyo Ilaahay jiritaankiisa subxaanahu wa tacaala. Ilaahay aayado fara badan oo kitaabka Quraanka wuxuu inagu faray inaynu fikirno nicmooyinka ina siiyay aynu dib u raacno si aynu markaas Ilaahay weynaantiisa u garanno. xataa iska daa nicamka kale inagu wareegsan markuu qofku isaga isku yimaado ee jirkiisa uu dib isku fiiriyo ayaanu nicmooyinkaasi faraha badan la Ilaahay siiyay aanu ka baxaynin tiradooda. saas darteed baa Ilaahay waxa uu inagu yiri miyayna nafiina idinku sugnayn aayad iyo cibar iyo waanooyin miyana idinku sugnayn oo inaad u fiirsataan aanay haboonayn. Ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ina faray inaynu nafeena u fiirsano. hadduu bini aadamku nafiisa u fiirsadana waxa uu kordhaysa Ilaahay subxaanahu wa tacaala yaqiintu ka qabo ama Ilaahay sidoo uu yaqiinsan yahay ayaa u kordhaysa. Ilaahay tawxiidkiisa uu isaga iyo Ilaahay xiriirka ka dhaxeeya ayuu qofku xoojinaya oo aad u xoojinaya. bini aadamku haddii uu fikiro gaal iyo muslimku doonaade waxa uu kordhayay inuu Ilaahay rumeeyo subxaanahu wa tacaala. waxa uu kordhaya aqoon, wuxuu ogaanayaa jahliga uu ku sugan yahay buu ogaanayaa. dabadeedna Ilaahay subxaanahu wa tacaala macrifadiisa iyo aqoonta Ilaahay ballaaran ayuu ogaanayaa. qofku wuxuu ogaanayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu hadduu nicmadaasi ka qabto cid u soo celinaysa aanay jirin. bal maanta daawadayaal waxaynu soo qaadanaa nicmada aragga ayaynu soo qaadanaa. in fara badan oo inaga mid ah inuu Ilaahay arag siiyay way ilowsan yihiin iyagoo la nool dad kale oo mujtamaca ka mid ah oo aan iyagu waxba arag. nolosha hadduu araggu ka maqan yahay dhadhankaa ka guura. hadduu araggu ka maqan yahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qofka aragga ka qaado, qofka waxa ka guuraysa dhadhankii uu nolosha inteeda kale ay lahayd. waayo macaanka nolosha iyo jiritaanka nolosha waxa markaasi qayb weyn ka ah aragga ayaa qayb weyn ka ah. intaanan barnaamijka qaybihiisa kale idiin gudbin waxaan idin xasuusinayaa xadiisku nabigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam. Ilaahay wuxuu yiraahdaa ilmo nabi aadanow waxaan idinku galaday nicmooyin fara badan oo aydan tirin karin. aayad quraana waxay Ilaahay inagu yiraahdaa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها
تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. haddii aad isku daydaan inaad nicmooyinka ilaahay kow laba ama qalin iyo warqad u qaadataan oo aad tirisaan tirin kari maysaan. haddaad suugaan ku cabiraystraahdaan ku cabiri kari maysaan. haddaad istirahdaan intaad markaasi guurti u saara ama dad indheergarada u saara oo ha soo qiimeeyaan nicmooyinka ilaahayna siiyey tirin kari maysaan ayuu ilaahay subxaana wa tacaala yidhi. xadiiskana ilaahay wuxuu nagu yihi nicamkan idin siiyey tirin kari maysaan, mahadnaqeygana gudan maysaan oo awood uma liidin. nicmooyinkaa waxaa ka mid a aragga aad wax ku aragtaan oo aan ku dahaadhay buu yihi ilaahay subxaana wa tacaala. dahaadh sare indhaha aad wax ku aragtaan oo aan ku dahaadhay dahaadh sare oo wax xaaraana haddaad ku eegtaan aan ugu talagalay inaad ka laabataan buu yihi ilaahay subxaana wa tacaala. bini aadanka labada indhood uu ilaahay siiyey hadduu wax xaaraana ku eego ilaahay wuu ka cadhoonaya tabaaraka wa tacaala. marka nicmada araggu waa nicmo weyn. dadka aan haddaba nicmadaasi haysan siday nolosha u dareemaan, maxay dareensan yihin? adigu se weli ma isqiimaysay intaad qof aan waxba arag ag tagtay nicmadu ilaahay ku siiyey iyo weynaanta ay leedahay, dabeedna intaad meel fadhiisatay ilaahay tabaaraka wa tacaala magu mahadnaq. welise ma isweydiinay imise jeer baynu ilaahay wuxuu necbiyaa indhaheena ku eegnay? ma isweydiinay imise jeer baynu indhaheena ilaahay ku caasinay subxaana wa tacaala? maxaynu samayn lahayn inagoo indhaheena ilaahay ku caasinay hadduu habeen inagala noqdo oo aroorta aynu soo toosnay inagoon waxba arkin? dad fara badan baa daraasad ka sameeyey indhaha. aqoonta sayniskuna waxay aada u daraasaysay mucjisadaha indhuhu ilaahay subxaana wa tacaala uu qofka siiy waa labada indhood qofka ilahay siiy ama il keliya. mucjisooyinka ku xeeran indhaha ama indhuhu siday wax u arkaan, indhuhu qeybahay ka kooban yihiin. bini aadamka oo indhaha uu ilaahay siiyey uu aayar kala noqon karo ayaa haddana bini aadamku isagoo ilowsan nicmadaas uu ilaahay siiyey ayuu in fara badan indhihiisaasi uu ku caasiyayaa ilaahay subxaana wa tacaala. website ka mid a websiteyada qora daraasaadka laga sameeyo aqoonta sayniska ayaa waxyaaluhu daraaseeyey waxaa ka mid a bini aadamku siduu macsi u doondoonayo oo weliba internetka uga eegayo second kasta 327 jeer inay baadhaan dadku waxyaalaha sagaska ama markaasi galmada ama jinsiga qaabilsan iyagoo doonaya inay indhaha ilaahay ku caasiyaan subxaana wa tacaala. waa secondkii maxaynu 60kii second waa 1 minute ka waran saacad marka lagu dhufto intee oo qofba markaa u tafaxaydad inay indhahooga ilaahay ku caasiyaan subxaana wa tacaala. goormaynu daryeelanaa indhaheena aynu ilaahay tabaaraka wa tacaala kaga cabsanana inagoo ka ilaalinana inaynu xumaan ku eegno, inagoo ka ilaalinana inaynu ku fiirino xumaanaynu ku qorno ama dhibaato kale oo xadhig maleeg iyo makri iyo markaa mashaakil kale inagoo markaasi aynu ilaahay subxaana wa tacaala aynu ku caasiyano. dadka aanu ilaahay subxaana wa tacaala indhahaasi u ka qaaday nicamkaa u ka qaaday ee ku sabra ee mu'miniinta ee muslimiinta ah ilaahay wuxuu ugu ballan qaaday inuu ajar fara badan siinayo aakhiro. labada indhood weynaanta ilaahay agtooda kale yihiin. ilaahay wuxuu qofkan adduunka ka qaado waxaan ugu bedelayaa janno. axaadiis fara badan ayaa ku timid. bal aynu u fiirsano daawadayaal, wiil yar oo dhalinyaro ah oo dalka Masar u dhashay. wiilkaasi isagoo yar buu indhaha ilaahay ka qaaday subxaana wa tacaala. nin baa wareystay wariye ah markii uu weydiiyey markaad habeenkii tukato maxaad ilaahay baridaa? wiilkaa yar wuxuu ku jawaabay, bal aynu u fiirsano, isaga oo yidhi markaan habeenkii tukanayo ee aan baryayo ilaahay marna ilaahay ma weydiisto inuu indhaha ii soo celiyo. qur-aanku xifdisay wuu yaabay. markaa ninkii wadaadka a wareysanay wuxuu ku yidhi sababtu waa maxay? wuxuu yidhi waxaan aada uga cabsi qabaa inuu ilaahay weydiiyo indhihii hanku siiyey imise jeer baad ilaahay imise jeer baad igu caasay, macsi imise jeer baad ku eegtay, imise jeer baad ayaad markaasi dembi aan ku idhaha eegin had eegtay buu yidhi. أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع لي البصر. لا تريد أن يرجع الله؟ لماذا؟ لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يوم القيامة فيخفف عني بعضا من العذاب. وأقف بين يديه خائفا متوجلا يسألني ماذا فعلت في القرآن؟ فعسى أن يخفف عني فالله يدخل من يشاء في رحمته. sidoo kale waxaanu booqasho ku tagnay xarunta lagu daryeelo dadka indhaha naafada ka ee ku taalla magaalada Hargeysa. halkan ay joognaa waxa weeyaan xarunta Braille Center, Somaliland Braille Center ama xarunta
lagu daryeelo dadka indhaha naafada ka ah waa xarun daryeesha dadka aan waxba arag ee akhriska ku taataabta gacmahooga ee dabadeedna fahma xilligan haynu marana waxay ku jiraan imtixaanka shahaadiga ah ee wasaaradda waxbarashadu hay ka qaadaso ardayda sanadka 2015 2016 waa arrin mucjiso ah oo dadka indhaha wax ka qaba inta faraha badan aanay u fiirsan si aynu u ogaano aynu gudaha galanaa daawasho wanaagsan waxaanu kula kulanay waxyaalo badan oo mucjiso ah dad iyagoo naafo ah dhalinyar iyagoo indhaha wax ka qaba oo aan waxba arkayn imtixaanaadkii shahaadiga ee dugsiga dawladdu ay ka qaadisay ardayda dugsiyada dhexe iyo ku jira waxay farta braille ku qorayeen imtixaankii ay markaasi soo akhristeen waxaan wareysanay dadka mas'uulka ka ah ee maamulaha iyo dadka kale markaasi hawshooda gacanta ku haya waxyaalaha aad la kulmayso waxaa ka mid ah dad fara badan oo nicmadaasi ilowsan inay markaasi markay arkaan ay argagaxayaan qof isagoo indhala quraanka xifdiyay adigoo indha qaba quraanka ma akhrida adigoo indha qaba intibaad ku dadaashay inaad wax wanaagsan xifdido ayuu qofku isweydiinaya had iyo jeer laakiin dadka indhaha naafada ka waxyaalaha ka cabdaan waxa kamid ah inay marar badan la kulmaan inay bulshada ka takoonayeen ka soocayeen waxa kale oo dareemaan faquuq xilliyada lagu jiro safafka doorashooyinka kale xilliyada diiwaangelinta kale waxay dareemaan cadaadis fara badan oo imika maaldood inoo soo caawdeen cawashooyinkoodii wax badan baa laga qabtay oo ururka dalada naafadan ka wargelin markiiba goobihii baa la tagay waxa ku dhacdo kale in la celceliyaba nagala joog leeyahay amba wixii lagu qaaday aragga dadka naafada ama haynee iska noqo soo noqo dadana ay dareemaan markaa cadaadis in iyaga haysto maadaama indhihii aanay waxba ka arkayn inay hadallo aflagaada ay suuqa ka maqlaan waa ninkii indhaha la'aa waa ninkii dhagaha la'aa waa kii curyaanka ahaa iyo ereyo kaloo lamid ah oo qofka uu ilaahay ku imtixaami karo ka sidaa le laftiisa uu ilaahay ku imtixaami karo mee wallaahi kuwa waddankeena marka la eego way ku badan yihiin dadkiina waxaanay dee fahansiinayn dadka badankoodu in dee labadan qof ba ilaahay abuurayoo dee magaranaysaa waxaa la odhanaya kii indhaha la'aa iyo qaar baa xitaa la odhanayaa adigoo maqlaya tromina maqlaya iyo wax markaa kolley bulshadeenu dee waxaan horta bulshada u sheegaya qofkan indhahala iyo kan lugahala iyo mid walba ilaahay baa abuuray ilaahayna xikmad buu u abuuray dee qofkan si ay dadka uga cibro qaataan marka waxa weeyaan dee kolley waa inay dadku ay dareemaan oo dee qofka magaranaysaa marka bini aadanka maxaa la gudboon oo inala gudboon dhammaanteen inaynu ilaahay subxaanahu watacaala aynu indhaha uu ina siiyey iyo nicmooyinka kale uu ina siiyey aynu ilaahay uga mahadnaqno oo aynu ilaahay ku adeecno oo inaan ku caasin oo inaan u adeegsan wax haddaynu waxun u adeegsano ilaahay nicmada wuxuu karaa inuu inagala noqdo laakiin uu inagu imtixaamaya ku indhaha ka qaadayna maaha inuu neceb yahay ku indhaha siiyeyna maaha inuu jecel yahay ilaahay subxaanahu watacaala labadaba noloshuu ku imtixaamaya marka kii ka soo baxa imtixaankaas baa aakhiro guulaysanaya ninka ku sabra isagoo indhala wuxuu siduu nabigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wuxuu helayaa jannooyin ayuu markaas helayaa gabagabadii barnaamijkeena waxaynu naftayda iyo nafiina baan ku waaninaya marka koobaad nicmada indhaha ee ilaahay ina siiyey inaynaan ilaahay ku caasiin subxaanahu watacaala dadka indhaha wax ka qaba ee aragga naafada ka ah inaynu gacan siino oo aynu caawino meelahay joogaan iskuulladay dhiganayaan iyo markaasi meelaha kaley joogaan guryahay joogaan markay u baahan yihiin baahi markaasi inay wax qabsadaan inaynu intaba markaasi aynu caawino aynu gacan ka geysano dadka muxsiniinta ee wax bixinaya inay markaasi goobaha wax lagu baro ay tagaan waayo marar fara badan waxay ka cabanayeen dhalinyartaanu la kulanay inaanay haysan markaasi manhajka markaasi wax lagu dhigto ee inta loo yeedhiyo iyagu farta braille ee la taataabto ay iyagu ku qoranayaan oonay weli wasaaraddu u keenin ama markaasi cid kale aanay u keenin markaa waxyaalihii agabka ay wax ku baran lahaayeen dadka qofka muxsinka ee wax bixinaya halkuu masaajid ka dhisi lahaa haddii masaajido fara badan jiraan in markaa dadka naafada ah wax loo qabto waa waxyaaluhu ilaahay gacan inankana aynugu siinaya subxaana watacaala haynu walaalayaal markaa aynu gacmaheenna aynu markaasi dadka ku caawino sidoo kale aynu ka ilaalino indhaha ilaahay ina siiyey haddaynu nahay dad indha qaba inaynu markaasi waxun ku akrino waxun ku eegno ilaahay ku caasino waxa loo baahan yahay inaynu qur'aanka ku akrino waxa loo baahan yahay inaynu wanaagga kaga shaqayno waxa loo baahan yahay ilaahay subxaanahu watacaala wax kastuu jecel yahay inaynu indhaheenna ku eegno wax kastuu neceb yahay aynu indhaheenna ka xidhanno gaalada iyo dadka markaasi aan ilaahay rumaysnayn marar fara badan dadka waxay u horseedayaan inay dadku markaasi ay macsi fara badan ku dhacaan internetka ayay macsidu ka buuxdaa qofku waxaa laga yaabaa marar fara badan inuu raadsado inuu daawado filmaan xunxun iyo wax la midka taasina hay keento markaasi
inuu qofku markaasi ilaahay indhihiisa ku caasiyo ka waran adoo filin xun daawaday khaasatan weliba dhalinyarta isagoo qofku filin xun intuu daawaday uu iska seexdo aroorta hadduu soo tooso isagoo labada indhoodba lagala noqdo ilaahay kala noqday miyaanay arrin markaasi mucjisaa qofka ku noqonayn intaynaan halkaa gaadhin inaynu ilaahay indheheena aynu ku adeecno ayaa loo baahan yahay insha allah barnaamijkeenana wuxuu noqon doonaa barnaamijyo qadiyado noocaas oo kale ah aynu kaga warano tan iyo kulanti dambe aniga cabdilaahi biirshiya mukhtaar mursal xiin iyo siidow oo inoo qaaday markaasi filinkaasi aynu ka wada daawanay dhalinyarta indhaha wax ka qabta dhammaantay waxaan ku dhaafanaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu تأملت والدنيا بها العجب والعجب تروح بلا عذر وتأتي بلا سبب فلا ظل barnaamijkeena labaadna waxaynu kaga warramanaa maanta qodob muhiima oo ah dadka muslimiinta ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu dhex dhigay xidhiidho kala duwan xidhiidhadaasi midba meel buu ku jooga laakiin bini aadamku markastoo diinta kasii durkaan xidhiidhadaasina way furfurtaan deedna taasi waxay keentaa inay bulshadu kala daadato qaybihii iskugu dhowaan lahaa inay noqdaan qaar kala fog وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين qaraabada waxaan u aqaanaa horta qaraabadu way laamo badan tahay qaraabadu waxa weeyaan qaraabadaydu waa ehelkeyga qaraabadayda waxaan u aqaanaa madaxaday تأملت والدنيا بها العجب والعجب تروح بلا عذر وتأتي بلا سبب فلا ظلها دان ولو طال أمنها وسل عن هواها كل من ودها خطب وسل عن هواها كل من ودها خطب ومن كان في هذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب ومن كان فيها ذا مقام ودولة